soo dhawaada Daarusalaam Academy. maanta waxaan qaadan doonaa casharkeenii labaad ama lesson 2 oo aynu ku baran doono rounding of numbers to bit drawing-ka. haddaynu tusaalaha koobaad eegno waxaa lana weydiiyey round of the following udub drawing soo socda to the nearest 10 tobanka ugu dhow udub. iminka ka ugu horreeya haddaynu qaadanay 53ga sidaan shalay soo baranay laba value uu imika leeyahay. 3gu value-giisu waa 1 ama koobaad, 5kuna waa 10 ama tobnaad. marka qiimaha 1-ka haddii uu inoola mid yahay 5 ama uu ka wen yahay waxaan oranaynaa sareynu duubaynaa ama round up baynu samaynaynaa. haddii uu 5 ka yar yahay sida imika oo kale 3ga ana round down baynu samaynaynaa oo hoos baynu duubaynaa. tusaale ahaan imika maadaama uu 53 maadaama 3gu ka yaryahay 5 sidiisaynu u daynaynaa barta 3gana 0 baynu ku bedelaynaa markaa 50 baynu la mid tahay. iminka talabaad haddaynu eegno ka ku xigta 145 baa layna weydiiyey 145 markaa qiimaha 1-isku wuxuuna 5 buu la eegyahay. mar hadduu 5 la eegyahay sareynu u duubaynaa mid baynu ka qaadaynaayoo 4kaynu u goynaynaa barta 5kuna 0 baynu ku bedelanaynaa markaa wuxuu noqonayaa 150 ayay noola mid noqonaysaa. ta ugu dambeysa 256 barta 1-isku maadaama oo uu 5 ka wen yahay waynu duubaynaa oo mid baynu ku daraynaa barta 5ka waxaanay noola mid noqonaysaa 260 oo barta 1-iska ana 0 baynu ku bedelanaynaa. markaas example-ka bal ku xigan aynu eegno. example-ka ku xiga haddaynu eegno waxaa layna weydiiyey round of the following udub drawing-ka soo socda to the nearest 100 boqolka ugu dhow. iminka ka ugu horreeya haddaynu eegno booska 100 ama boqolka waxay noola mid yahay 7. ka ku xiga oo 6ka maadaama uu 5 ka wen yahay sareynu u duubaynaa oo hal baynu 7ka ku daraynaa inta kalena 0 ayaynu qaadanaynaa markaa waxay noola mid noqonaysaa 4800 labadaa kale 0 ayaynu qaadanaynaa. ka ku xiga booska 100ka waxay noola mid yahay 0. ka ku xiga oo 6ka maadaama uu 5 ka wen yahay sareynu u duubaynaa hal baynu ku darsanaynaa barta 0 inta kalena 0 ayaynu qaadanaynaa markaa waxay noola mid noqonaysaa 7000 iyo 100 labadaa kale dambe 0 ayaad u qaadanaysaa oo sareynu u duubaynaa baynu niri. ka kusii xiga oo 345 waxaynu baleegaynaa labada siyaabood ama laba option baynu kala qaybin doonaa laba qaybood ma sareynu hoos baynu u duubnaa 300 buu noqonayaa ansarku sareynu u duubnaayo 400 buu noqonayaa. maadaama oo lambarka 100ka ku xiga oo 4ka uu ka yaryahay 5 hoos baynu u duubanaa markaa 300 buu ansarku inoo noqonayaa. sidiisa labada lambar ee 3ka hooseeya waxaan u qaadanaynaa 0. markaa example-ka kan ku xiga aynu eegno. tusaalaha saddexaad haddaynu eegno example 3 waxaa layna weydiiyey round of the following udub drawing-ka soo socda to the nearest 1000 kunka ugu dhow. ka ugu horreeya haddaynu eegno booska kumaad waxaanu ugu beegan 3. ka ku xiga booska kumaad oo 6ka maadaama uu 5 ka wen yahay sareynu u duubaynaa micnihii hal baynu ku daraynaa 3ga markaa inta kalena 0 ayaynu qaadanaynaa markaa 4 buu noola mid noqonayaa 1000 saddexdaa dambe 0 ayaynu qaadanaynaa. ka ku xiga haddaynu eegno booska kumaad 4 baa noola mida. ka ku xiga booskaas oo 2ga maadaama uu 5 ka yaryahay hoos baynu u duubaynaa micnihii 4ka waynu iskala soo daadegaynaa inta kalena 0 ayaynu qaadanaynaa markaa wuxuu noola mid noqonayaa isaguna 4000 ka ugu dambeeya 2540 ayaynu doonaynaa inaanu kun u duubno markaa dee laba option ayaynu bixin doonaa ma wuxuu noqon doonaa sareyn hoos baynu u duubnaa 2000 baynu noqon mise sareynu u duubnaayo 3000 ayaynu ka dhignaa. waxaynu horta eegaynaa booska kumaadka ku xigo 5ka maadaama uu 5 la eegyahay sareynu u duubaynaa micnihii hal baynu ku daraynaa 2ga inta kalena 0 ayaynu qaadanaa markaa 3000 bay ansarka saxda inoo noqonayaa.
marka insha allah halkaas inagu joogi doonaa casharku waa inoo casharkan ka xiga